waa dadka Soomaaliyeed in la wadaago xaaladda dalka waa ka xunahay in runtii xaalad aan fiicnayn lagu jiro laakiin hadda Soomaaliya ma ho talaxumada waligeeda iska jiri jirta annaga nama bilaabanayso laakiin waxaan rajaynaynaa inay wanaag ku soo dambayso Ilaahay idinkiisa runtii waxaan hami weyn ku qabnay qarannimada Soomaaliya inay lixaadsato waxay ku lixaadsan kartana waa cadaaladda iyo sharciga sida la socotiin hadda nidaamka hadda jira waqtigiisa waa dhamaaday waxa ugu weyn oo la isku haayana waa doorashooyinka heshiis laga yahay oo caadila oo inta yani laga heshiiyey hal qabto iyo lama qabanayo doorasho anaga qabsanayna adaguna marxaati ka noqda qadiyadda horta asaasiga waa taas waxaa la sii jirta dalkan saa ogtihiin dastuur oo heshiis ku yahay oo ummaddu ku wada socota ayuu lahaa dastuurkaas in wax laga bedelo isla dastuurka ogol laakiin hanaana jira iyo habraacaas laba marin waa laga tegay kooramkiina ma dhamaystirnayn wax ka bedelkiisina wuxuu noqday wax ka bedel u ekaaday dastuur cusub taas waxay keentay kala aragti duwanaansho iyo maamulo badan inay go'aan ka qaataan doorashooyinka marka loo soo laabto doorashooyinka sida ogtihiin waxa wax la isku doorto waa waqti qofka mandate waxa la siiyaa 4 sano 4 sano waa soo dhamaatay May 15 soo dhamaatay annaga waxaan rabnay inay dhamaato May 15 la gaaro iyadoo doorashada heshiis laga yahay maxay la kulama doorashada heshiis laga yahay waxay caawinaysaa deganaanshaha siyaasadeed iyo isfahamka iyo caawinaysaa haddii doorashooyinka heshiis laga waayo kala aragti duwanaashadaas waxay saameynaysaa midnimada dalka waxay saameynaysaa amniga waxay saameynaysaa dhaqaalaha waxaan u maleynayaa maanta in arrintaas la dul taagan yahay runtii waxaa nasiib darro ah marka madaxweyne lagala hadlayo doorasho oo lagala hadlayo mudaaharaad inuu ciidankii qaranka loogu talagalay inuu cadowga difaaco inuu daroomo soo kiciyo oo beebayaal soo kiciyo oo wax alle wuxuu heli karo anaga oo noo soo diro taas horta nasiib darro asagoo diidan in la mudaaharaadku saa ogtihiin waa xaq dastuuri ah madaxweyne ma jooji karo wasiir amni ma jooji karo xukuumadda ma jooji karto midda cajiibka horunta inaan isweydiin ay tahay guriga hadda mudaaharaad ma ka socdo hadda xilligan la joogo maxaa leeyahay mudaaharaad bir qabanaysa sharciga hadii la raacayo wax kama qabto wax qofka soo socda oo uu qabo doono biri oo qofku waxaas qabanaya waxba ugama qaban kartid dambi maaha mudaaharaadku dambi ma aha haddii xataa ayaga ay dhibsanayaan inay yiraahdaan dadkaasi biri mudaaharaad qabanayaan jidadkan hala xiro dadka u socdana ha laga joojiyo raashin yaan loo geynin biyo yaan loo geynin yaan la booqanin soo edeb darro maaha qofka xuquuqda uu leeyahay waxaa ka mid ah gurigiisa hortiisa inaan jidgooyo lagu samayn karin xorriyatu tanaqulka waxa la yiraahdaa dhaqdhaqaaqa qofka xorriyadiisa jidkaaga lama goyn karo ciidan lama keeni karo dhagax lama dhigi karo ciid lama dhigi karo waa sharci darro waxaasoo dhan annaga u jeedna haddana annaga mar walba dhinaca nabadda iyo dalku inuu xasiloonaado ayaan aad mataqaana u danaynaynaa laakiin dee qofka marka ama nidaamka marka uu waddada ka habaabo maalinta cadaa habeen u noqonaysa wuxuu bilaabaya inuu gudad ku dhaco marka gudadka maxaa ka mid ah annaga dalka xurmaan ku leenahay xurmada aan ku leenahay waxaa soo hogaaminay xilli adag aan soo hogaaminay doorasho caadil aan ka qabanay asagaa ku guulaystay waa ku wareejinay waxaan ku leenahay xurmo intee ka yimid ciidanka inta la soo diray anay xabad igu soo riday ciidanka ilaaladeeda xabadaynaya ciidanka joojinaya dadka aniga ay booqanaya intee ka yimid ciidanka sharciga ku dhisay bal isweydiiya maxaa keenaya intaas waxaa sii dheer habeenay maalin haddana dad ku soo diraya ayadoo qofku kula fadhiyo oo ku soo diray waxaa lagu leeyahay inta ciidanaa galay su'aashana raba marka ciidanka inaan weydiiyo saraakiisha ciidanka iyo ciidanka qalabka sida madaxweynaha waqtigiisa waa dhamaaday annagana dembi ma gelin maxaa keenaya annaga in la cabsi geliyo oo ciidan wala wareejiyo maxaa u sameynaysan arrintaas
waxaa u samaynaysiin mushaarka dartiisa mase waxaa u samaynaysiin sharcigaa idin farahay inaan fahmaan rabo aniga madaxweynaha iyo askarta hadday umaleyn inaan cabsanayno cararayno annaga ma cararayno dad carara waa ka weyna annaga waa ogtiin magaaladan nabadeeda waxaan ku bilaabnay guruub yar oo kooban iyadoo culeyskooda badan yahay xabadkaan u dhigan culeysyo badanaa naga soo waajahay xabadkaan u dhigan ilaaha ku mahadsan marka waxaan rabnaa